kastoo binu aadane saqiir iyo kabiir qof yar iyo qof weyn buu u baahan yahay. wuxuu u baahan yahay in laga dhiso caqiidada dhabta ah, barista ilaahay, dadka oo ilaahay la baraa, dadka oo ilaahay la baraa lagu celceliyaa, dadka oo xikmadda la baraa, dadka oo ilaahay la baraa, dadka inta ilmaha inta ugu qeylin lahayd salaad tuko salaada ku cadaabi lahayd, bar ilaahay, asaga ilaahay hala heshiiye, hala saaxiibe, ha u dhawaade, ilaahay ha raadsadee, ha uga dhigin ilaahay micnaha wax cariiri ah. risiqana bar ilmahaaga iyo naftaadaba, risiqaaga mar walba korkaaga u sheeg, ilaahayna wixii laga fisha ayuu ku siinayaa, ilaahay wixii laga fisha ayuu ku siinayaa. mar walba waxaa korkaaga u sheegtaa risiq ma weynaayo, weligay cariiri ma gali dooni, weligay wax ma weyni dooni, waa haystaa, waa dharagsanahay, wax walba waa ii buuxaa, bangigayga waa jabooyaa, wixii awooda waa bixinaya. sidaas markaa u hadashid waxaad noqonaysaa deeq ilaahay uu ku siiyo oo fara badan. deeqsi ayaa noqonaysaa, deeqdi ilaahay ayaa ku dhaqmaysaa, risqi ilaahay ayaa ku kala furmaayo, qof wixii sii batay oo barakoowe ayaa noqonaysaa. dadka ilaahayna isha ku yinin wuxuu haystaa suu ku hela xanaaq. waxaas waa waxa risqi xiro. aan ka bogsano umadeey, aan bogsano oo bulaalno oo guulaysano oo dadka ilaahay aan nabadgelino, aana ku dhaqanno dhaqanka wanaagsan ee xaqa ah ee nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday, ilaahigeena subxaana watacaala kusoo dejiyey. dadaala oo risiqaaga suu ku barakoobo, dhaqamadaada ku dabaq asmaa'ullah xusnaa, kitaabka qur-aanka iyo sunnada asmaa'ullah xusnaa, axaadiista xaqa, xikmadda baro, xikmad ku qaad. wax kasta haddaad xikmad ku qaadin khalaas ogaada shaydaan ayaa nagu lifaaqsan, mar walbane wuxuu nagu hayaa juhdi adag oo shirar badan ayaa dhacayo in lagugu baabi'iyo la rabo. shaydaanka iyo ehelkiisa wixii raaca isaga ah, si ilaahay nooga badbaadiye marka waa in aan ilaahay isku dhibnaa oo ilaahay tawakulnaa oo noqonaa dad firfircoon oo indhahooda furan aan la marin habaabin karin. waa kaas channelkeeni ahaa toosinta garaadka iyo barashada xikmadda oo ay ismahaan idin daadinaysay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.